bari baa meel magaalo ah waxaa ku noolaan jiray 3 carruur ah oo la kala odhan jiray Cali iyo Aamina iyo Lugooye. Cali iyo Aamina waxay ahaayeen carruur aad u maskax badan, wax kastoo ay samaynayaanna 2-3 jeer ayaa ay ka fikiri jireen ka hor inta aanay samayn. laakiin Lugooye waxa uu ahaa mid ka duwan, waxa uu ahaa mid calool adag oo bilaa daryeel ah. maalin maalimaha ka mid ah ayaa Cali iyo Aamina waxa u yimid Lugooye, waxaanu ku yidhi, waryaada Cali iyo Aamina, waxa aan moodayay in aynu tegayno beertii geedaha cambaha oo miyaad ilowdeen? Cali ayaa yidhi, haahey, anigu waan ilaaway, laakiin si aynu u gaadhno meeshaas waa in aynu kaynta sii dhex jibaxnaa. Aamina ayaa tidhi, taasoo keliya ma aha, laakiin waxaan maqlay kaynta waxaa jooga xayawaano halis ah oo cabsi badan leh. anigu ma tagayo, aad baan uga cabsanayaa. Lugooye waxa uu yidhi, wax xayawaan ah iyo wax kala toona ma joogaan, dadku intaa waa ay tagaan, waanay ka soo noqdaan, waa ay sii maraan dariiqa maalin kasta. Cali waxa uu yidhi, anigu waalidkay umaan sheegin, marka aynu meesha tagno ee ka soo noqonno waxa ay noqonaysaa xilli dambe ee maalin kale inooga dhiga. Lugooye waxa uu ku yidhi, oo waalidka miyaad ogeysiisaa wax kastoo aad samaynayso se waayo? haddii aad fasax weydiisato kuma ogolaanayaan in aad meel la tagto. ma rabno in aynu cid ogeysiino, ina Mariya aan tagne degdegna u soo noqonee. Aamina ayaa tidhi, waayahay, waa hagaag, laakiin hal wax baa jira, haddii wax khatar ahi meesha ka dhaco waa in aynu qofna qofka tegin, waa in aynu dhammaanteen qof waliba qofka kale caawiyaa. bal maxay idinla tahay asxaabey? Lugooye ayaa ugu jawaabay, waayahay, waa sax, imika ina Mariya. 3 carruurta ahaa waxa ay bilaabeen inay u sii socdaalaan xaggii kaynta, laakiin intii ay sii socdeen cabsi weyn bay ku jireen, waayo waxa ay hore u maqli jireen sheekada xayawaanka halista ah ee ku nool kaynta. markii ay in door ah lugeynayeen waxa ay maqleen dhawaaq dheer oo naxdin leh. 3doodiibana socodkii ayaa ay joojiyeen, isla mar ahaantaasna bilaabeen inay hareeraha eegaan si ay u gartaan meesha uu dhawaqu ka soo baxayo. isla mar keliya ayaa ay arkeen madax kuti weyn. carruurtii waa ay anfariireen, markaasay cagaha wax ka dayeen, waxaanay ka yaaceen madax kutidii, kadibna isku qariyeen geed u dhowaa. Cali ayaa yidhi, hayaay, waa madax kuti, bal maxaynu samaynaa hadda? Lugooye ayaa ku yidhi, Cali iyo Aamino i caawiya, aan geedka koree. markaan geedka koro ayaa aan gacanta kor idiin jiidaya si aad idinkuna geedka u soo kortaan. Cali iyo Aamina labadoodiiba Lugooye ayaa ay ka caawiyeen in uu geedka uu fadhiisto oo uu koro. Lugooye ayaa ku yidhi carruurtii, geedka boos keliya ayaa ka bannaan oo qof keliya uu fadhiisan karo, markaa xageed rabtaan inaad fadhiisataan idinku? Cali iyo Aamina waxa ay sameeyeen bay garan waayeen. markii Lugooye uu sidaa ula hadlay, madax kutidiina waabay soo dhowaatay. Cali iyo Aamina aad bay u yaabeen, waxaanay yidhaahdeen, haddii aynu indhaha isku qabanno oo aynu dhulka jiifsanno oo aynu wax dhintay iska dhigno oo aynu indhaha dhaqdhaqaajin weyno, madax kutidu waxba inama yeelayso. Aamina ayaa tidhi, waa runta sida aad sheegaysaa, ee sida aan yeello. 2dii carruurta ahaa markiiba dhulka ayay seexdeen, iyagoo aan indhaha dhaqdhaqaajinayn. madax kutidiina agtooda ayaa ay timid, markaasay kolba mid ursatay. waxa ay mooday in ay dhinteen, dabadeed meeshii bay iskaga tagtay. Lugooye ayaa wuxuu arkay sida la yaabka leh ee ay u fikireen iyo sida ay uga badbaadeen madax kutidii. Lugooye waxa uu ku yidhi carruurtii, oo hayaay, waryaadaheen, si la yaab leh ayaad uga fakateen madax kutidii, waxaad tihiin kuwa nasiib badan, bahashiina idinmay cunin, waa ayna iskaga kiin tagtay. Cali ayaa ku yidhi, haa, maanta runtii waxaan nahay dad aad u nasiib badan. Lugooye ayaa ku yidhi Aamina, madax kutidu aad bay kuugu soo dhowaatay, ee maxay kuu sheegaysay? Aamina ayaa waxay ku tidhi, waxay igu tidhi butidu waxay ilahayd, hala saaxiibin dadka adigoo kala ah, weligayna dib kuula hadli maayo. Lugooye ayaa carruurtii ku yidhi, bal horta i caawiya oo geedka iga soo daadajiya.
cali iyo aamina ayaa ku yidhi madax ku tidii waxa ay noo sheegtay in aanay wax faa'iido ah lahayn in aanu caawino dadka adiga oo kale ah. haddii aad doonaysana inaad soo daadegto geedka ka soo bood. aamina ayaa ku tidhi haddii aad rabtana geedka dushiisa iskaba fadhi, annagu tuuladii baan ku noqonaynaaye. labadii carruurta ahaa kayntiibaa ay iskaga tegeen iyaga oo cadhaysan. lugooyana waa uu sii eegayey intii ay sii socdeen isagoo keligii geedka saaran. carruuray waa inaynu had iyo jeer caawinaa asxaabteenna, laakiin waa in aynaan la saaxiibin kuwa ina khiyaameeya ee beenta inoo sheega. sheekadii masduulaagii iyo tukayaashii. beri hore waxaa jiray geed weyn oo qudhac ah. waxaa ku noolaa 2 tuke. geedka